أكيد. soo dhawaada saaxiibayaal sida aan wada ognahayba masaajidu waa goobaha ilaahay ugu jecel yahay dhulka muslimiintuna aad ayay u daneeyeen dhisitaankooda iyo hagaajintooda iyo camiritaankooda sidaas awgeed masaajidu waxay ka mid noqdeen goobaha ugu quruxda badan dunida uguna soo jiidashada badan sidoo kale waxay ka mid noqdeen goobaha loogu dalxiiska badan yahay muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dhowr ka mid ah masaajidaas laakiin intaynan gudagelin muuqaalkeena fadlan subscribe noo saar kanaalka gambaleelkana furo si uu kuu soo gaadho fiideo kasta aan soo gelino like-na saar muuqaalka fikirkaagana noogu qaybta hoose ee commentiga siina sheergara muuqaalka oo sii faafi aynu bilowno masjidka koobaadi waa masjidka xaramka masjidka xaramka waa masjidka ugu weyn uguna quruxda badan adduunka waana meesha ugu qiimaha badan dhulka korkiisa halkaas oo ay ku taalo kacbada barakaysan waa meeshii ugu horreysay ee basharku u dhiso cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala masjidka xaramka gudihiisa iyo barxaddiisuba ku dhowaad waxay qaadi karaan 400 milyan oo qof masjidka labaadi waa masjidka nebiga calayhi salaatu wassalaam waana masjidkii labaad ee muslimiinta masjidkan waxaa dhisay nebiga calayhi salaatu wassalaam waana masjidka labaad ee ugu weyn adduunka sidoo kale waxaa ku aasay nebiga calayhi salaatu wassalaam masjidka saddexaadi waa masjidka crystal wuxuuna ku yaalaa dalka Malaysia waana mid ka mid ah masaajida ugu quruxda badan dunida islaamka sidoo kale waa masjidka ugu quruxda badan dalka Malaysia masjidkan waxaa la dhammaystiray sanadkii 2006 dhisitaankiisuna wuxuu qaatay muddo 2 sano ah waxaana hal mar ku tukan karaa wax ka badan 15,000 oo qof waana mid ka mid ah meelaha dalxiisayaashu ay ugu jecel yihiin inay ka tagaan dalka Malaysia masjidka afraadi waa masjidul azraq sidoo kale wuxuu ku yaalaa dalka Malaysia waana mid ka mid ah masaajida ugu caansan dalkaasi sidoo kale waxaa loo yaqaanaa masjidka salaaxudiin cabdulcasiis masjidkan waxaa loo dhisay qaab cajiib ah waana masjidka ugu weyn koonfur bari aasiya wuxuuna qaabili karaa hal mar inay ku tukadaan 24,000 oo qof masjidkan sida ka muuqata magaciisa waxaa loogu magac daray midabka buluuga sababtuna waa tiirarkiisa buluuga ah ee ka samaysan almuniyamta iyo qalinka masjidkani sidoo kale waxa uu leeyahay minaaradda ugu dheer adduunka dhererkeeduna waa 143 mitir waxaa xusid mudan masjidkani waxa uu leeyahay 4 minaaradood waana masjid ay ka muuqato farshaxanimo aad u xeel dheer sidaas awgeed waa masjidka ugu quruxda badan xagga dhismaha dalka Malaysia iyo guud ahaanba dunida islaamka fadlan daawade subscribe ta ka ilaawin kanaalka sidoo kale like saar muuqaalka waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin masjidka shanaadi waa masjidu suldaan cumar safiyudiin masjidkan waxa uu ku yaalaa dalka Brunei waxaana loogu magac daray masjidkan suldaankii Brunei sida magaciisaba ka muuqata masjidka waxaana la dhisay sanadkii 1958 waana meesha ugu badan ee loo dalxiis tago dalkaasi masjidkan jiha kasta waxaa ka xiga biyo mixraamka masjidkani waxa uu ka samaysan yahay dahab sidoo kale minaaradiisu aad bay u dheer tahay gudaha masjidkana aad ayaa loo farsameeyay oo looga shaqeeyay masjidka lixaadi waa masjidu Sheikh Said masjidkana waxa uu ku yaalaa Abu Dhabi waxa uu ka mid yahay masaajida ugu quruxda badan dunida masjidkani waxa uu ku yaalaa goob istiraatiiji ah waxa uuna u dhaxeeyaa labada buundo ee ugu waaweyn Abu Dhabi masjidkani waa masjidka shanaad ee ugu weyn dunida waxaana halkii mar ku tukan kara 40,000 oo qof masjidkan minaaradiisu waxay gaadhaa 107 mitir
masjidkan gudihiisa iyo derbiyadiisaba aad ayaa loo sharaxay, waxaana yaala roogga ugu weyn uguna culus dunida, kaasoo lagu sameeyey dalka Iiraan. Masjidka toddobaadi waa Masjidu Suldaan Axmed. Masjidkan waxa uu ku yaalaa dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, waxaana loo yaqaanaa masjidka buluugga ah sababtoo ah waxaa ku dahaadhan midabka buluugga ah, kaasoo loo mariyey si farshaxamaysan. Sidoo kale, masjidkani waxa uu leeyahay 8 mixraab. intaasuu ku egayay muuqaalkina maanta. Haddaba daawade commentiga noogu reeb masjidkii aad ula yaabtay. Inta aadan muuqaalka ka bixin, subscribe saar kanaalka si aad noola socoto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان